السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa waliid, waxaan jiraa 28 sano. waxaan rabaa inaan idin sheego sheekadeyda waxa ay soo bilaabatay 2 sano ka hor anoo jira 26 sano. waxaan ka shaqaynayay shirkad, waxaana ka ahaa xisaabiye. lacagta aan shirkadda ka qaato qaarna waan biilan jiray, inta kalena meel ayaan dhigan jiray si aan ugu guursado gabadha aan jeclahay. gabadha aan jeclaa isla shirkadda ayaan iskala shaqaynaynay. waa gabar aad u qurux badan, akhlaaq wanaagsanna leh, dadka oo dhanna waa ay u qireen inay tahay qof wanaagsan. waxaan go'aansaday inaan ciddeeda ka doonto, laakiin marka uu aabbaheeda ogaaday inaan shirkad shaqaale ka ahay haddana guri yar ijaar ah degan, waa uu ii diiday gabadhiisa inaan guursado. yumna ayaa qoyskeeda u sheegtay inaan ahay qof aad u wanaagsan, sidoo kale waxay u sheegtay inaysan rabin hanti badan. waxay kaloo dhahday qofaan asiga ahayn ma guursanayo. ugu dambayn waa ay ku qancisay inaan isguursano. doonashada sanad ayaa ka soo wareegay, kadibna waan isguursanay. guri iska yar iyo nolol iska dhexdhexaad ah ayaan ku bilownay, laakiin labadeenaba aad ayaan isugu faraxsanayn, waayo jaceylkeena ayaa wax walba ka weynaa. yumna ayaa ii soo bandhigtay mashruuc yar inaan samaysano si aan nolosheena heerkeeda kor ugu sii qaadno. waxaan ku dhahay sidee ayaan ku samaynaynaa anoo mishaar yar qaata. waxay igu dhahday kabaran shaqo kale oo mishaar fiican laga qaata haddaan raadino, kadibna lacag aan meel ka dhigano si aan guriga ugu gadano, sidoo kale nolosheena heerkeedana aan kobcino. waa fikrad aad u wanaagsan, waxaan rajaynaa shaqo aad u fiican inaan helno. waxay igu dhahday waxba ha ka cabsanin, waan helaynaa. maalintii xigtay marka aan shaqada ka soo baxnay, shirkado kale ayaan aadnay, waraaqaheena ayaan u gudbinay. mid ka mid ah shirkadaha ayaana soo dhaweeyey. nasiib wanaag lamadeenaba waa nala aqbalay. mishaarkana wuxuu ahaa 2 jibaar mishaarkii aan qaadan jirnay. aad ayaan u faraxnay. maalinba maalinta ka dambaysay noloshayna waa isbedelaysay. shirkadda waa layga dalacsiiyey, mishaarkaygana wuu sii kordhay. markaas guri ayaan iibsanay, nolosheenana waa ay sii qurxoonaatay. maalin maalmaha ka mid ah hooyaday ayaan soo booqanay. aabbahay goor hore ayuu dhintay. waxaan aragnay hooyo oo aad u xanuunsan, xitaa aanan cabi karin daawooyinkeeda, waayo keligeeda ayay ahayd, cid daryeelaysa ma lahan. aad ayaan arrintaas ugu murugooday. yumna ayaa i weydiisay waxa igu dhacay. waan u sheegay. yumna waxa aan ka filaynin ayay iigu dhahday. waxay igu dhahday kabaran hooyada gurigeena haddii aan keenno. waxaan ku dhahay maxaa dhahday? yumna waxay igu dhahday gurigan aadku weyn ayaad leedahay, hantina ali wuu ku siiyey, maxaa diidaay hooyada inaad inta keento? sidaasna ayada kelinimadii ayay kaga baxaysaa, anagana waan daryeelaynaa. aad ayaan ugu farxay hadalkeeda. waxaan ku dhahay wallaahi xaas aad u wanaagsan ayaa tahay, berito ayaan hooyo soo wadayaa si ay anaga nolo noolaato. sidaas ayaan isku waafaqnay. shaqada ayaan aadnay. markii aan kasoo laabanay, yumna waxay soo iibisay raashiin, waxayna diyaarisay qolka hooyo. aniga waxaan u baxay si aan hooyaday u soo wado. hooyo gurigeeda ayaan gaaray, waana salaamay. waxay igu dhahday maxaa kugu dhacay maantana waa ii timid? haa ayaan ku dhahay, hooyo inaad iraacdo, aad aniga ila noolaato ayaan rabaa. waxay igu dhahday xaaskayga ma yeelaysaa arrintaas? meeqo ayay kugu qaadatay arrintaas inay kugu qanciso? waxaan ku dhahay maxaad ku hadlaysaa? maxayna u diidaysaa? waxaan kuu sheegayaa arrintan in ay ayada ii soo bandhigtay. hooyo ayaa igu dhahday waan ogahay, sidaas waxaad u dhahaysaa inaad ayada i jeclaysiiso, laakiin ha isku dayin. waan garan waayey hooyo waxa ay sidaas u leedahay, laakiin ugu dambayn waxaan go'aansaday inaan wado. alaabaheeda ayaan u diyaariyey, waana soo waday. gurigii marka aan gaarnay ayaa yumna hooyo soo dhawaysay. yumna ayaa hooyo wax walba u diyaarisay, xitaa waxa ay akhrisay daawooyinkeeda wakhtiga la siinaayo si ay mar walba ayada u siiso. yumna markasta hooy si wanaagsan ayay ula dhaqmaysay. waxaad u malaysaa inay ayada hooyadeeda tahay. bilowgii hore wax kasta caadi ayay ahaayeen, gadaalahan dambe ayaa hooyo waxa ay bilowday inay dhibsato yumna, weliba sabab la'aan. markastana yumna ayay ka dacwoon jirtay. anna waxaan ku dhahay hooyo yumna maxay kugu samaysay? waxay igu dhahday gabadhan lacagtaada oo keliya ayay rabtaa, ee dantaada dhanka ma shaqayso. waxay kaloo dhahday wanaagga ay ula dhaqmayso waa markaad adiga joogto, marka aad guriga ka maqan tahay si xun ayay iila dhaqantaa. arrintii ayaan aad ula yaabay. waxaan ogahay yumna hanti iyo wax la mid ah inaysan rabin. anigoon waxba haysan ayay nolosheeda raali ka noqotay. maxay hadda hanti ka rabtaa? hooyadayna waxaan ku qanciyey inay yumna qaldan tahay. yumna ayaan weydiiyey xaaladda hooyaday. waxay igu dhahday aad ayaan u jeclahay, waa hooyaday oo kale, maalinna xumaan kama arag. arrintaas aad ayaan ugu wareeray, laakiin nolosheeda waa ay sii socotay. yumna ayaa nagu dhahday kadis ayaan rabaa inaan idin sheego. maxaa waaye ayaan ku dhahay.
uur ayaan kuu leeyahay ayay iigu dhahday. markii aan arrintaas maqlay aad ayaan u farxay. alle subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celiyey. laakiin markii aan hooyaday fiiriyey arrinta kuma aysan farxin. waxaan isdhahay khilaafka iyada iyo Yumna ka dhexeeyo awgii waaye. laakiin maalin ayaa la gaaray ay xaaladda aad u xumaatay. maalintaas guriga ayaan soo galay, waxaana arkay Yumna oo hooyaday dhulka ku tuurtay. waxayna ku dhahaysay, maxaad iga rabtaa? waan ogahay inaad inacban tahay, iga leexo. inta aan ku qayliyey ayaan ku dhahay, Yumna maxaa kugu dhacay? maxaad samaynaysaa? Yumna ayaa iigu dhahday, si qaldan ha ii fahmin, arrinta sida aad moodo maahan. waanu adkaysan waayey inaan arko hooyaday oo oynaysa. Yumnana waxaan ku dhahay, waad furan tahay, bax guriga aabbahaaga aad, inaan ku arka ma rabo. asxaabi, intaas ayaan ku joojinaynaa maanta. maxaa ku kalif Yumna sidaas inay samayso? Yumna ma hooyo ka qaldan mise hooyo ayaa qaldan? intaas oo dhan waxaan ku ogaan doonaa qaybta labaad ee sheekadeena. fadlan haddii aad channelka cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa like iyo share iyo subscribe inaad noo saarto.